sidaynu wada ognahay waxa bulshada mar ka sii dambaysa ku sii badanaya xanuunada ama cudurrada loo yaqaano faaliga ee ku dhaca xubnaha kala duwan ee bani aadamka taasoo ay sababi karto cunto xumida iyo biyo yaraanta iyo cimilada oo marka qaarkood laga dareemo sun hawada saameynaysa iyo waxyaabo kale oo tiro badan haddaba mar aanu u kuurgallay sida ugu fudud ee loo daaweyn karo ama looga hortagi karo xanuunadaas ayaa waxaanu waraysi la yeelanay Dr. Cali Saleemaan Jaamac Dr. Xerow oo ah mulkiilaha xarunta isku daaweynta habka shiinaha ee Dr. Xerow kaasoo nooga xog waramay dhibaatooyinka soo badanaya iyo sida looga hortagi karo waxaana uu yiri dhakhtarku sidan waxaan rabaa marka bulshada daawan doonta inaan uga faa'iideeyo waa mid talada koobaad aan siinayo waxa weeye waxyaalaha bay'ada dhulkeena ka soo baxa inay isticmaasho Soomaalidu qofkii kasta oo la iska daayo labada intaas oo dal mid walba wax inuu ka qaato qofku waxyaalaha naturalkaana in la isticmaalo oo waxyaalaha kiimikada badan ku jirto in la iska daayo waayo khudaartii oo fresh ayaan haysanaa qofku hadduu khudaar iyo biyo helo isu dheelitiran cudurro badan ayaa wuxuu ka heli karaa inuu iska caawiyo oo jirkiisu iska saaro waayo jirkeenu way isu dheelitiran yahay ilaahay baa wuxuu sameeyay wax kasta oo qofka bini'aadmiga u baahan yahay jirkeena leh wiil yar oo 20 jir ah oo ka cabanaya joint pain lambar diski dhabar xanuun looyo xanuun ka cabanaya 20 baan gaarin waa dhibaato qofkaas maxaa ka dhiman wakiil la rabo qofku markuu wax walba iska saari karo jirkiisa waxa laga yaabaa inuusan samaynin socod ku filan biyo ku filan inuusan cabin khudaar ku filan inuusan qaadan wuxuu iska difaaci kari lahaa hadduu biyo badan iyo khudaar badan uu cabo waxyaalaha muxuu ahaa dalka ka soo baxa oo baal kalena cuno waxa qof kasta uu isticmaalaya bariis iyo baasto waxyaalaha baal kale gal kale sidoo kale iyaguna waxaa jira dad isbedel ka dareemay daaweynta habka dabiiciga ah ee shiinaha caafimaadkayga Soomaaliya alxamdulillah wallah adiya dhabarkaas aniga xanuunayo dhabarka markii la iga shaqeeyay alxamdulillah caafimaad baan ka dareemay lugaha waxaan ka dareemay xanuun badan maalintii aan imid qaraac neerfo oo dhan madaxa ayaantii diman kullayda qalabkan casriga ah aan meel kale ku soo arag markii uu horeysay markaan dhowr cisho la keenay kooraankan wixii ka imanayay buu ogaaday booga ma garanaya hadalka ma soo baxay boogiibu gacanta ku fiiqay waa loo dhigay oo wax loo bogsaday buu noqday kolka wax bogsaday ayuu noqday xagga lugaha aad baan uga waxaysnaa هات وحن ما هو وجيفيبه كرب اللي ما قاعدين قربها اللي هي ولا يسوقلي ما إلهام باللي يسوقلي الحمد لله هذا وافي أنا يساقربك أنت نطقت قطعة سعني قربك قفك أن راعية اسبدل وين باندريمية أنا أقول إثيوبيا كإيمي قلع في ميلادو